walaalkay farmaajow dadka sacabka kuu tubaya ha dhegaysan oo quraatay kuwa kula talinayna dhegaysan ee ku jecel anu waxaan ku jiraa dadka ku jecel laakiin baadil aan kugu raacin ee kula talinaya i dhegayso ku noqo beeshaas u yeedh walaalaha aqbal maanta adduunku annakana lama socdo caalamku sidaan doonayno uma socdo ma socdo si kale u socdaa sidaad uga dhex bixi lahayd dadaal oo u yeedh dadkaas waa kow number one waa risaaladda ugu horeysa risaaladda labaad waxa weeye dastuurku inuu faaruqin waa sax meesha cidlaha kaga tegin laakiin waxaa la rabaa inaad tiraahdid walaalahayow kaalaya meesha lagula leeyahay ninkani dini la yidhaahdo ee degan maaragtay xakuma gobolka puntland dowladda puntland uu kula leeyahay talada liannahu madaxweyne gobol weeyaan wuxuu xukumaa federalism uu ku jiraa uu kula leeyahay cabdina maxamed axmed islaanna uu kula leeyahay walaalka weeyaan waa walaalaha fillaahi wa fi soomaal ilaahay dartii iyo soomaalnimo darteed ba walaal baa ku tihiin shariif waa ninkii u dhiibay dowladda si fiican xasanna waa ninkii si fiican kugu dhiibay adiga way kula leeyihiin dhulka dalkana way kula leeyihiin xasan waa ninkii kula soo shaqeeyey 3 sano iyo badh ee taariikh ku gasheen labadii madaxee si fiican iskula soo shaqeysay waxaa kale oo si fiicana ninka cabdishakuur aadan wasiir buu soo noqday waa istaqaanin horena uu kula shaqeeyey horena uu ka shaqeeyey waa saas cabdilkariim hadday tahay daahir hadday kullu waxaas oo dhan murashaxa ah waa dad wadaniya oo Soomaaliyeed oo walaalahaya waad isdiideen waa run oo de kursigu iyo siyaasaddu waa sida asalku waa maxay siyaasaddu waa siraac waa loolan laakiin adiga waxaa laga rabaa si aqligii aad ku imatay Soomaaliya ee tiri waan badbaadinaya ee magaalada xamar lagaaga bannaan baxay daraadeed lagu soo wada baxay adiga lagugu soo baxay lagu taageeray imise goor markii ra'iisul wasaaraha ka tageysay iyo markii aad madaxweynaha noqotay adduunka dhan uu isqabsaday shacbiyada xajisaanteeda ku dadaal walaalkayo dhegtana ka dhageysa kuwa ku jecel dhegtana ka dhageysa kuwa ku nacab dhegtana ka dhageysa qofka naasixa amiinka ah dhegtana ka dhageysa ka ku faanaya mushkiladda madaxtinimadu waxa weeye waxa la jecel yahay in la maqlo sacab la tumayana macna male sacab lagu tuma macna male jarbay ka tuurayaan kuwa sacabka tumayaan kuwa kula ku dhigsana wahdiid kula sacab jarbay ka tuurayaan aqliga shaqisi maxaad ku dhageysaa waxaan ka sheekeynay Soomaaliya digniintii ugu dambaysa la siiyay dawladdu faashil ka soo kacday dawlad hesha weyn jiddan waa dawlad yar oo burburaysa way ku noqonaysaa fashilkii halkii laga digayay Soomaaliya waa kamaaniga waa waxa ku shidan nalkii casaa oo u shidan sida ugu sarreysan wali waa ugu dambaysa Suuriya Yemen Soomaaliya subhanallah marka farintaas murakabka ah ee isku jirta yaan ku soo daray walaalkay iyo wixii la shaqeeyaba ikhwaani fillah